dhowaan waxay markii saddexaad ku dhawaaqeen guddida heer qaran ee ka hortagga caabuqa covid-19 fasaxa dugsiyada dalka iyagoo sheegay in fasaxyadoodii caadiga ahaa ay gelayaan dugsiyada waxbarasho ee dalku ilaa 31 bisha 7 2020 haddaba macallimiinta dugsiyada dalka ayuu saameyn ballaaran ku yeeshay saameynta dhaqaale ee uu ku keenayo caabuqaasi gaar ahaan waxa shanta bilood ee xidhiidhka ah gacmaha dhulka saaray macallimiinta dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa aan gunaysnayn ee dhiga dugsiyada dawliga ah iyo weliba macallimiinta gunaysan oo aanu ku filayn mushaharooyinkii ay ku gunaysnaayeen iyagoo noloshooda ku kabi jiray in ay si gaara waqtiyada aanay shaqaynayn u dhigi jireen dugsiyada gaarka ah sidaa darteed mar aanu buuqanay xarunta wasaaradda waxbarashada gobolka Gabiley ayaanu wax ka weydiinay qaar ka mid ah macallimiinta gobolka Gabiley saameynta ay ku yeelan karto muddadan cusub ee guddida dib ugu dhigtay waxbarashadii dugsiyada dalka markii saddexaad waxaana hadaladoodii ka mid ahaa markaad eegto kordhinta faraha badan leh ee aan qiyaasta lahayn iyo waliba wax xataa lagu bedelo xal loo raadiyo macallimiintii xaqoodii la eego oo aan loo haynin oo ilaa maanta laga hadal iyo waliba siday xaaladuhu u socdaan iyo kororka faraha badan la caabuqii ku yimiday markaad eegto xataa waxay ba su'aali ka taagan tahay talow ma lagu soo noqon doonaa ee su'aali ka taagan tahay marka dooxa aan aalo iyo deelay lumisteeda iyo dirarka soo horay iyo dacwadeer joogta markaan dayo umurteeda daacado hashaydan daralay ku socota iskuulada ku dhacday waxa ahayd iyadoo cudurkiina soo gaaray oo ummadeenu asal way caafimaad qabtay asalahan way caafimaad qabtay laakiin waxa ka imanayay dibadda iyo hayd in laga hor joogsado iyadoo markaa inagu dhicin waxbaba iyo horta iyo masiibadii dhibteedii sii dhandhaminay dabadeedna raadkeedii bayna soo gaaray laba markaa laba masiibo iyo dugsiyada ku dhacay xanuunkan waxa ku matali karaa nin lagu yiri gurigaaga masbaa ku soo socda ee diyaar garow ayuu markii hore ninkaasi waxa la gudboonayd inuu u diyaarsado hubkii kula dagaalami lahaa maska ama uu yeedho ciddii taqaan laakiin waxa iga yaabisay maqsinadii gurigiisa qaarna uu xiray qaarna uu furay masaa'ibtan wadanka timiday ee haddana saameynta ku yeelatay waxbarashada iyo masaajidada waa mid la yaab intii waxaan odhan lahaa lacag malaayiin ay soo gasheen war bal qayb ka mid ah dadka dhibaatada aad u geysateen macallimiinta iyo isugu jira dadka kale ku xidhnaa bal waxa laga soo gaarsiiyay cidda kaliya la dhibaateeyay xanuunka ka horba la dhibaateeyay waa macallimiinta iyo cidda ku xidhnaa runtaad go'aan ridaysaan inaad qiimeyn ku samaysaan bal go'aankaas bulshadu hirgeliyo ciddu saameyn ku yeeshay in feedback u yeeshay sidii barigood jaadko kale in haflan lidii dabadna jaadka meel walba ka soo galay cid walba problem ku beeray ee haddana wali go'aankii markii dagaalka noqosho go'aanka timid tan maanta ku tallaabsateena waa mid macallinkii saameynaysa waa mid ardaygii saameynaysa waa ardaygii 2 bilood hore fasaxo ka labana lagu daro ardaygaas uu gudaayay waxbarasho uu gudaayay mid kale macallinkiina way saameynaysaa soo macallinku markii horeba barigii horeba dhulka iska sii yaalay oo wuxuu qaataa $100 ahayd waa kii gunaysnaayo maantana la yiraahdo dana waxba laguma hayo ardaydan waa ka fasax dhaqaalaha ka helay taasina waxay noqonaysaa sidoo kale gudoomiyaha waxbarashada gobolka Gabiley oo aanu xafiiskiisa ku soo booqan ayaa waxaanu wax ka weydiinay sida ay casharada u siiyaan ama ay uga warhayaan ardayda teerankii ugu dambeysayba fasaxa ahayd imtixaankiina laga rabo in dhammaan ardayga keejiga ee dugsiga wali aan gaarin ilaa ardayga jaamacadda dhigta in casharadii looga dhigo TV-ga waxaa la wax ka baaqday oo ka lumay oo aan ahayn imaatinkii iskuulka ma jiraan waxaa jirta arday miyiga oo aan TV-gina haysan internetkana haysan eerarkiina ku jira imtixaankiina kolleydee loo wada fadhiisanaya dhammaan oo u siman idinku arrintaasi see u maaraysaan waxaan kuu sheegayaa horta marka koowaad ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa maaha ardayda maxaa keejiga marka laga bilaabo ilaa fasalka 11aad oo ah form 3 secondary-ga imtixaan ay u fadhiisanayaan ma jiro ardayda waxa u fadhiisanaysa secondary-guna gobolkeena waa la socotaa oo waxa la degmooyinkii waaweynana TV-gina way leeyihiin radio-gina way leeyihiin
muxuu ahaayey howlahan kale lagu shaqeeyey maaragtay website-dadana way haystaan. ugu dambayntii guddoomiyaha waxaanu wax ka weydiinay waxa uga qorshaysan macallimiinta dugsiyada gaarka loo leeyahay oo wasaaradda hoos yimaada ka gobol ahaan maadaama ayna mushahar iyaguna toona lahayn. runtaa weeyaan macallimiinta gaar ahaan aan gunaysnayn ee dowladda u shaqeeyeen laftooda macallimiintan private-ka u shaqeeyeen dowladda iyaguna ka lacag qaadana labaduba inay dareemayaan dhibaato culus waa wax la jiro wey. alxamdulillahi rabbilcaalamiin waxaan kuu sheegayaa macallimiinta horta dowladda u shaqeeya ee aan gunaysnayn haddii aad la socotay iyo haddii kaleba raashin baanu halkan ugu keenay dhammaantood waanu ka sinay waanu baro wala oo aan gunaysnayn bafarta ka saar taasi waa taa maanta haddadan aynu joogno macallimiinta private-ka u shaqaysa ee mushaharkii ka go-ay kuwa iyagu shaqaalihii way qaataan mushaharkoodii oo kuwa imka aad arkayso halkaa lagu siinayo kuwii muxuu ahaaye private-ka mushaharkii qaadanaynin waxaan ugu gudbinay hay-adda network leedahay oo ay yahay guddiga kahortaga fayrasku u gudbiya waxay siinayaan raashin liiskoodii oo dhan iyo macallimiinta keliya maahee dumaradii ku hor imin jiray wax iskuullada dee ubadkoodu iyagana u baahnaayeen waxa ay ku shaqaynayeen waayey labadaba waxaa loo gudbinay hay-addaasi waana loo soo wadaa raashinkiina way helayaan insha allahu tacaala. waa cabdisalaan maxamed bade bulsha TV Gabiley.